أشرف إنه إن مانتا سود وينه الوزارة الدولة الفدرالية الصومالية مدير عمر عبد الرشيد علي شرماركة ونوصل جاري السعودية يرو قابل الوزارة في يمد إن كوضع تشرنا الحرير كدولة الفدرالية دولة بوتلان وحنا دمانتين ونصعد تنا أكتهين روايها دبنا دولة الفدرالية أنا أساسا بناني دولة بوتلان دولة بوتلان wax badan ayay ka tabanayaan dawladda federaalka waxayna aaminsan yihiin in barnaamijkii geedi socodka nabadda Soomaaliyeed ee laga rabay dawladda federaalka ah inay runtii sidii la rabay aysan u soconin lana baalmaray marka waxaan rajeynayaa ra'iisul wasaaruhu waa noo yimid waxaan rajeynayaa inuu jawaabo waafi ah su'aalahaas tirada badan oo dadka reer Puntland ay qabaan inuu nooga wada ayaan rajeynayaa waxaan rajeynayaa is aragga iyaga iyo wada hadalka iyagu in ay wax badan jawigaas ka bedeli doonaan waxaan rajeynayaa in imaatinkiisu uu noqdo imaatin khayr wada hadalka iyaga iyo wada jirka iyaguna uu keeno midnimo Soomaaliyeed iyo horumar dhanka kale waxaa hore noola joogay madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe barnaamij isagu nala sii joogay insha Allah marka haddana waxaan ugu soo biray ra'iisul wasaaraha waxaan rajeynayaa marka wada hadalka iyaga inuu noqdo mid ay ka soo baxdo dan tacaamka ay ummadda Soomaaliyeed mid horumarinaysa madmadowga iyo dhibta ka jirta Puntland iyo dowladda federaalkana u raadinaysa xal waara ilaahay aad u mahadsantiin soo dhawow farxad halka soo gaaro mar kale hadii sida uu sheegay madaxweynaha Puntland in wajidan ayaan dadka ay rabo xiisada ka iyo maalatay alwaas laakiin dalka kan dal aan hadda qaranimadiisa dhisayno dadka isku keenayno way waana markasta waa xajidaya waxyaabo keeni kara maalatay shaki ama keeni kara xogaan in isla fahmo way hadana dad baa ilaahay naga dhigay wax loo baahan yahay markasta insha Allah aanu isku imaano ka wada xajoonno halkan waatankayga waxay salka ku haysaa arrintaas insha Allah waxaan rajeynayaa markii wada hadalkan noo dhawaado inaan gaarno muwaafaqo runtii aad wanaagsan waxa asagana halka joogista uu sheegay madaxweynaha Jubbaland asagana waa runtii wada hadalkaas qayb ka noqonaya runtii farxad weyn oo tahay inaan waqti soo helno arrintan aan soo arjano runtii waxyaabo xal qaar lagu gaaro aan meesha la imaan hadii la yiraahdo qaranka kan dadku sugayo waa anaga iyo dad kale oo hadda ka maqan halka waxa loo baahan yahay insha Allah dhisno oo hadda aan gaarsiin 2016 qabel system federal oo runtii qanaaca dadku qanacsan in ay meesha ka dhalato marka runtii waa ku faraxsanahay goor galo waa waqtiga aan soo galay soo dhaweynta madaxweynaha iyo ka wada celiyay sida diiran oo soo dhaweeyay waqtigeyga runtii waa gurigeena waa dhamaanay oo rajeynaya insha Allah markii aan loo wada hadalno inaanu isla gaari doono muwaafaqo guud iyo runtii isfaham guud marka wixii kale insha Allah gadaal baan diiray